ninkan waxa ku dhacay ma maqshan hadaadan maqlin dhowereena ka dabageenayo hadaad nagu cusubtay daawada follow-na soo dhawo maasantahay reer tiktok videoga xaqiisa waa taqaaniin like iyo repost taabta reer facebook idinkana akoonkayga daawanaysan follow soo dha waa maasantii repost ha ilaawina guys. Okay, last 78 hours ka dhacday adii 2 maalmood iyo wax la jiro buu ninkani social media haysta. ninkani waxaa la keenay asaga oo gurigii ex-tiisa hortaagan oo video ka duubaya oo ceetamaayo muddo yaroo kooban kadib asaga ayaa soo fariistay sawirka uu gaariga dhex fadhiyana waa ninkan waa dhakhtarka ilkaha weeyaan waliba wadanku sheekadan ka dhacday idinka commentiga kusoo sheeg say doontaba ha noqotee ninkani gabar bay isqabeen buu yiri wuxuu yiri sheekada saad aragteen ma aha ninka waa la caayay mugtay baalaha laga fireer comment is not easy hada daana u tabarax wayga balaarinay marka waa ina si wanaagsan u hadlaa dad wanaagsan ah tireer comment waa idin wata say doontaba ha noqotee ninkan gaarigu soo fariistay wuxuu yiri se wuxuu dhaceen ana idinka dabagelin ana waad idulmisaan bilaash baanadi waa aynasaan wuxuu dhahay gabadhan waxa isqabnay buu yiri 3 sano ka hor maya astaghfirullah muddo 3 sano ah ayaan isqabnay buu muddada 3 sano hal gabar kaliya ayaanan u dhalay same xaafad ayaanan wada deganahay yani dadarisa ayaanaanay buu naagtan waxaan kala maqanahay buu yiri muddo 1 sano ah hadda ayaanu sii kala maqanahay ma astaghfirullah muddo 2 sano ayaan kala maqanahay buu yiri 2 sanana ilmahayga yar ma aan arkin buu yiri anagoo 1 sano isqabna ayaan gabar yar noo dhalatay buu yiri 2 sano markaan kala tagaynay gabadhayda yar waxay jirtay wili 2 sano haddana 2 sano laga sii jooga gabadhayda yar 2 sano oo naagtan kala maqanahay isma arag isma maqal inaan telefoon ka wada hadalno waa la ii diiday inaan arko waa la ii diiday buu yiri guriga marka laga soo saarayo gaari madow baa lagu ridaa buu yiri oo iskuulka lagu geeyaa laguna soo celiya iskuulka ay dhigatan wuxuu yiri waa school international private malay ogolayna saragno waxa la igu yiri buu yiri oo la igu xujiyay maxkamadu ha ku xukumiso inaad ilmaha yar aragtid qualified umatid inaad ilmaha yar aragtid okay wuxuu yiri aniga miyaanan aabihin miyaanan xaq u leeyahay naagtaan si xun bay ii gashay aniga oo la nool guriga ku wada nool ayay maaragtay iska kay furtay oo maxkamad ii adeegsatay buu yiri waliba imaysan dareensin xataa inay ii dacweynayso inay iska kay furayso waxaan imaysan dareensin inuu yiri anagoo normal u wada nool oo wada ceeshayno oo sariir wadaagayno oo nolol wadaagayno bay haddana subaxdii intay iga kala haday ay tiraad saaxiibtay baa soo salaamaya bay maxkamadaha iyo looyarada u tageysay buu yiri soo aniga waa la dulmiyay ilmahayga 2 sano ma aanan arkin ilaa ay hadda maxkamadan ku laalaabta maxkamadmaduna wax iima qabanin waa dulmanahay buu taaganay soo soo aragta sheekadan qaybta commentiga nagu la wadaaga bye gabadhan Soomaaliyeed waxa ku dhacday ma maqshan hadaadan maqlin intaan ka fahmay sheekadeeda idinka dabageynaya gabadhaani waxay tiri magacayga waxa la yiraahdaa Isha video la soo jarjaray baan arkay gabadhan videodeedan waxaan ku arki jiray TikTok runta fiican okay say doonto waan noqday inta videogeedin bilaabi like saara falaadana soo dhiyay xaq videos iyo maasanti gabadhaani waxay sheegtay inay tahay hooyo heysata 5 caruura gabadhan 2023 iyo 24 baan videodeeda TikTok ku arki jiray ayadoo live ku jirto ina TikTok marka soo socdo ka soo warbaxaysa qofka Soomaa saas camal okay gabadhaani waxay sheegtay inay isqabi jireen ninkaas kor saaran oo cadaanka ah waxay tiri wiil hore Soomaaliyeed baan caruur soo dhalay 3 caruur baan u dhalay bay tiri ninkan cadaankan waxaan u dhalay 5 caruur so videoga inaan duubo videoga igu kalifa waxay tahay video hadda hadlayso iyo video hore miyaa malaha la isku soo dhadhijiyay taasaan marka arabi okay si doontaa noqotay ninkan cadaanka 2 caruur u dhashay gabadha Mareykan bay ku nooshaaleeyay si doontaa ha noqotay gabadhaani ninkan cadaanka ah waxa la soo qaaday video ay leedahay waa soo muslimiyay diintu haysta waxay tiri marka gabadha ninkan cadaanka ah waa kala tagnay amba kala tagna Maxamed diintii uu ka baxay wuxuuna ku laabtay tiri diintiisii waliba diintiisa Kristaanka iyo Orthodoxiga waxyaabahan aan aqaan diin aan la garaneynba ayuu ku laabtay bay tiri saydoonta waxaa noqotay waxaad walwalka ugu weyn iga hisaabay tiri 2 caruur u dhalay 3 days na asaga haystay tiri 4 days na ana haysto soo waxa ka baqayaa bay tiri ilmahayga inuu diintaasi iga baro ay iga fadaroobaan wuxuu iimo ogolay tiri ilmahayga inaan Afrika geysto iimo ogolay inaan la safro wuxuu yiri hadda Afrika geynsa ama la safraysa ee dhaxda xataa inaan ku ogolaado 1 bil ama 2 bilood ka badan ilmahayga lama maqnaan kartid waxay tiri ilmahayga kale aan faaraxa u dhalay quraan online ay dhigtaanay tiri waxaan ka baqayaa ilmahayga yani inay kala go ay imaato oo fikri ah oo kuriisha ah oo diin ah
okay waxay tiri markaa iisoo duxeeya horta ilaahay dhibkaa ka kor qaado gabadhaas walaashan ilaahayna amuureeda u fududeeyo yaana lagu digan dadku diganaya arkay yaan lagu diganin waxaa layidhi boodarageed maalinba mid baa qaawan yaan lagu digan nabsiga awal waxaa layidhi waxaa wada jiray diidiin hadda laakiin haad baa wada so gabdho especially dumarka ilaahay ka baqa gabadhaas ilaahay looga baqo qofka bani aadamka waa khaldami karaa gabadhan marka waxyaabaha aan ku arki jiray waxaa kamid a inay caayi jirtay faaraxyaasha ayadoo maaragtay ammaanaysa faaraxyadan oo gaaladan oo dhahayso yani faarax soomaaliya romantic ma ahan saan ma ahan kan ma ahan gabdhaha soomaaliyeedna waxay siisay advice oon aniguna qabo waxay tiri haddaad faaraxka uga ordaysid oo islaada ilmo cadaana ilmo indha bluugaa dhali ilmo qurux badan baa dhali hadhow tole dhibaataa kaasoo horta aniga dhanka ajaanibta cunsur yar baa ka ahay oo dhinacaas ma isku fiicnin faarax mijo dheeman faaraxyaal xun oo qaraar waa jiraan oo cadkoogu xaaraan yahay laakiin waxaa jira at the same time faaraxyo wanaagsan okay faaraxyo maaragtay ilaahay ka baqaya ilmahooda xaasaskooda reerahooda ilaashanaya waa buuxaan laakiin waa yaryihiin maybe say doonta baa noqoto gabdhaha ku fikiraya inay ajaanibta guursadana talaysiis waxay tiri ka fiirsada gabdho aniga calafka ilaahay baa haya maribi hadal beritoolaan ka shalay inaa dhaho calafka ilaahay baa laakiin haddiiba ay dhacdo inaad ajnabi guursatid ka fikir in staypka ah inaad ilmo u dhashid okay faarax ilmaha waa dayacan yes ilmaha ma kugu daryeelayaan yes waa dhacdaan waa ku furayaan adoo umula adoo uurle yes waa ku qayaamayaan yes waa kula guursanayaan mayba qalbigaaga jibinayaanba yes waxyaaba badanay kugu samayn karaan laakiin one thing faaraxyada gaalka dilgartiisa siiya awlaadaada kugu masilcinayo ama uu kaa qaadan oo asaa haysan hadduu korana beri ayagunba kusoo raadinaya because waa ilmo diin iyo dhaqan iyo maaragtay lagu abaabinaya waalidka jacaylkiisa ama wuuba kuu dayn yuu kugu biilin waxba yuu ku siini duurkaasuu kaa galiya haddii uu maanta kugu xumaado tolbaa kaa qabanayo oday dhaqameeda kaa qabanayo dariska kaa qabanayo asxaabtiisa kaa qaban karto imaamka masjidka kaa qaban karo dii karta ninkan iga qabta waa loo wacdina iska qalbigiisa in la xariisku geliyo so ilaahay ayadana ha u fududay yaan lagu digan gabdhaha yaan lagu digan gabdhahan hala daayo ilmahaasna ilaahay ha badbaadiyo bay ayadana waxaan leeyahay ilaahay walaalo kuu fududay amuurahaaga bal insha allah dadaal hayn dad weliga waxaa laga yaabaa media inaan kaaga soo horiyey waxaad maanta la yaaban tahay waxaad maanta is leedahay aniga waxaasaa sameynay beri aad oo sameynaysid baa laga yaaba inaad is aragtid sababtoo ah you never know nalka iga dame you never know beri toole meesha ku dambeynaysid you never know nasiibkaagu meeshuu kaa tuuri doono soo dadaala baay adigana ilaahina nasiibkaa noo wanaajiyo bay